warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar waxaana la filayaa madaxweynuhu iyo wafdiga uu hogaaminayo inay ka qayb galaan shirka dalalka Carabta iyo sidoo kale midowga Afrika kaas oo maalinta Biritaa ka furmaya dalka Masar wariyahayaga Salaad Maxamed Khayri ayaa warkan inoo faafaynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray dalka Masar si ay ugu qayb galaan shir madaxeedka dalalka Carabta iyo midowga Yurub oo biri ka furmaya magaalada Sharm el-Sheikh shir madaxeedka dalalka Carabta iyo midowga Yurub oo markii koobaad dalka Masar lagu qabanayo ayaa waxaa looga hadlayaa xoojinta iskaashiga u dhaxeeya dalalka Carabta iyo Yurub xalinta caqabadaha wadamada caalamka horyaala sida tahriibka iyo sidii wax looga qaban lahaa xasilooni darrada ka jirta qaar kamid ah dalalka Carabta madaxweyne Farmaajo ayaa madaxda Carabta iyo kuwa reer Yurub kala hadli doona sidii taageero dhan waliba ah loogu fidin lahaa dawladda Soomaaliya oo ku howlan dib u soo kabashada iyo dawlad dhisida Soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale shir duceedyo la yeelan doona madaxda ka soo qayb galaysa shirka isaga oo kala hadlay doona xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalalka Carabta iyo Yurub mas'uuliyiinta iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaybta ka wafdiga madaxweynaha ayaa dhankooda kulamo gaar la yeelan doona dhigooda dalalka Carabta iyo Yurub iyaga oo kala hadli doona sara u qaadida iskaashiga iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa safarkan waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Axmed Ciise Cawad wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Baqdaadi iyo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Salaad Maxamed Salaad Soomaali Som News TV Muqdisho